بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lahu ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. wiilkeena walaalkeen ku dhintay maanta gacan kaga daran ay dishay Allahu naxariisto midka dhaawaca Allaha caafiyo. waxaan u maleynayaa wiil kale inuu jiro akhbaarta soo gaartay laba wiil waxa dhintay inta aan ka gudbin waxa la sheegay wiilka dhaawaca isbitaalka la geeyay in la ku taagan yahay taas intaas aan uga gudbayaa waxaan rabaa kaliya inaan raaciyo arrintaas waxay ku dhinteen sharaf waxay ku dhinteen iyagoo difaacaya dad ahalkooda ah Soomaali ah xuquuqdooda la duudsiyay la dirdilay la sumcad dilay la sharaf dilay iyagoo u gurmanaya ayay dhinteen marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryaynaa jannadiina inuu geeyo dadkii dhalay Ilaahay sabr iyo iimaan ka siiyo hadday caruur ka tagaan caruurtaas Ilaahay wali u noqdo intaas waa tacsiyadii waxaan u maleynaa aad uga dheregsantiin maanta waxa dhacay madaxdii kala duwaneed ee joogtay aad ay uga hadleen si faahfaahsan annaga sida la idin sheegay Adeer Cali Iimaan iyo wasiirka ayaa noo yimiday waxay noo sheegeen odaga waayeelka in uu ugu jiro wadna macmala oo xataa mar waxaan loo soo sheegay inuu dhintay marka waxay dhahan waxaan rabnaa inaan noo damiinatiin in adinka leedan xurmeeyaa laga yaabaa noo damiinta isbitaal aan geysano kadibna wixii yimaadaba aan wada aragno intaas anaga ku baxnay sida la idin sheegay markaa meesha tagnay dad badan joogay kullay waa ka aragteen baraha bulshada buuqa iyo sawaxanka meesha ka dhacay si caadi ah damcana inaan u galno albaabada waa la isku dhiftay ana Allah waxaan ku yiri war waxaan booqanaynaa dadka dhaawacan ee naga fura waxaan u maleynaa wasiirka aniga iga horeeyay albaabka isku soo dhuftaan bas waxa lagu taliyay gadaal inaan u soo laabano waxaan go'aansanay inaan maadaama wixii aan u soconay nagala hor istaagay shirka jaraa'id meesha inaan ku qabanno kadibna ka soo tagno markaan is diyaarinay waxa bilaabatay xabadii wiilasha waxaan dhahnay xabada ridina sida aad wada ogtihiinba xabadii baabuurkayga kullay waa taqaaniin waa kana ها يا كويس تسمع حبض ku soo dhacdo waa arkaysa marka baabuur xabad ka dhacaysa maaha qora ma saara ya waa iska garin kartid marka ujeedada laga lahayo waa fahmi kartid marka dadku talagalay inay dad dilaan oo aan wali arkin inay dambiilayaal yihiin umad barakiciyeen umad jir dileen isla markaasna shaatigii dawladda arintaas ku sameynaya runtii annaga waxaan u arnaa nasiib darro aad aan u cambaaraynaynaa waxaan rabaa wax yar inaan dul istaago booliisku siyaasi maaha booliisku waa hay'adda sharci fulinta wuxuu u dhaxeeyaa madaxda xilka haysa iyo madaxda mucaaradka iyo bulshada kaliya waxaa laga rabaa inuu sugo maxkamad sharci ah go'aan ay soo saarto inuu wax ku qabto waxaan aad uga xumahay ma raba hadda inaan aad uga hadlo laakiin maadaama aad maanta uga hadlaayay ninka taliyaha gobolka ka ah magacayga ama mataqaanaa wada shaqayntii xilligii maxkamadaha runtii annaga waxaan dadka ka celinayna horta waxaanay ahayn waagii maxkamadaha la abuurayay ama la aasaasayay bulshada dhan ka qayb qaadatay kuwa guda jooga kuwa dibadda jooga waxa la diidanayna mooryaannimo ahayd waxa la diidanay sharci darre ahayd waxa la diidanay tuuganimo ahayd waxa la diidanay dad inta la afduubto la iibsanayo hadday saas tahay waxaan u maleynaa inaan abaal ku leeyahay inaan wax fiican inoo ka qayb qaatana sharafteeda ka qayb qaatana fursad u siiyey dawladnimada inuu soo galana in fursad loo siiyey waxaa wada ogtihiin weligay kama hadlin wiilkaas ma aqaana xataa aniga sheekh cabdiqaadir cali cumar ii sheegay inuu maxkamadaha ka mid ahaa jira ma aqaana laha ka allah ilaahay iga taa ma aqaana maanta hadda wasiirku wuxuu ugu yiri barnaamijku taagnaa ma arkin inaan arka ma moodo waxa hadda laga shaqaynaayo iyo wixii annaga aan soo barnay horta shaqo isku ma laha annaga waxa aan soo barnay waxay ahaayeen war ummadda la dhibaataynaayo dhibka ha laga dul qaado maxaa ku xigay waxa ku xigay Etoobiyaan annaga dawlad ma diidanay waxaan diidanay Etoobiyaanka dawladana waa taan la heshiin waa la socotay Etoobiyaanka markii lagu heshiiyay inay baxaan meesha ku dhamaatay annaga Etoobiyaan diidanay xaqan u leenahay dadka Soomaalida dhan diidanay taasaan ku soo hogaaminay waxaan ku soo hogaaminay marka xilkan nimadana shabaab in la iska bixiyo waxaan ku soo hogaaminay in dawlad la noqdo waxaan ku soo hogaaminay in
cadaalad lahayd intaas halkaasaa ugu gudbay inaan annaga weerarno dad wax weeraro maahin waa joogi jirnaa maxaan u weerar weyne weligaan waa joogi jirna maxaan u weerar weyne annaga waxaan u soconnay waxaan ka jawaabayna codsiga labadan adeer aan idinkaga warramo 9 sano jiraa adinka dhallinyaraa tihiin waxaa la yidhaa cali iimaan gadow soo saas maa aabbihiis nabadoon u ahay nabadoonkaas waxau leeyahay qiso cajiiba waxaa lay sheegay waxaa loo keena xaajo habeen waxaa la yidhi adeero iska seexo berriyaa gelaysaa xaajada waxau dhahaa ma gelaayo ma seexanaayo yaa ii sheega inaan noolaanayo ilaa berri subaxdii haddaan gelaa haddaan dhammaynaa sidii uu sameeyey adeer cali soomaalidu dee waa reerkan abgaalka la yidhaah nin ku jira oo maanta ninkaas laga hormarinaya ma jiro gadaashayda waa ka warsan kartiin marka ninkii xurmay waayey adeer cali ninkii xurmay waayey oo gabadha miskiinta xurmay waayey oo odaga 90 jirka ah injineerka xurmay waayey maxaan ka filaynaa annaga waajibay nagu tahay Soomaalida waajib ku tahay qofka madluumka in la gargaaro islaamnimada waajib noogu tahay nusratul madluum marka waxaan leenahay إذا لم تستحي فاصنع ما شئت حديث القدس حديث القدس وحول ليه هداد الحشونيني واحد دون تسمي بالله عليكم دولك أنا قادناي dadka waa barakicina waa dila waa xira lama soo damiina karo lama soo booqo karo ay cadlan hada ma dawladnimo waxa isku jiri karto kuma jiri karto waxaan rabaa inaan ka hadlo ciidamadan tirada badan oo maanta la soo bixiyay shabaabka xagee jiraan shabaabka may aadaan shabaabka may naga xoreeyaan waxaan rabaa halkaan inaan dawladda fariin uga diro annaga hadda waxaa naloo sheegay abaabul fara badan inuu socdo in dagaal la abaabulaayo nabad sugidda militariga booliska waxaan leenahay wiilalyahow Soomaaliyeed waxaad mushaarka ku qaadatiin oo dawladda aad ku tihiin dulum ma aha hadduu dulum yimaado dawladnimo waa dhimatay qof iyo qabiil la naqaa qof iyo qabiil haddii la naqdana dawladnimo waa dime adigu mushaarkaad weyhe garaadada garbaa kugu suranaad weyhe ummadana dib u celinaysa annaga hadda annagoo qoryahayna haysana oo xabadayna haysano oo diriri karna ayaan dhaana had dagaalamina annagoo meeshayna joogi karnaa dhaana aan ka tagno si aysan caqabad kale u imaanin abaabulka socda hal la joojiyo haddii la jooji waayo mas'uuliyadda adinkaa qaadaaya magaaladan waa guri iyo qoray waa lays yaqaanaa waa laga keenay waa laga soo yacni waa laga soo dharaan dhiriyey madaxweyne xasan sheekh waxaan rabaa inaan xasuusiyo 4 sano ka hor aniga asiga waxaan isla joognay hotel jazeera waana la soo weeraray wiilashii nala socday khayr Allah siiyo maa'ida difaacay galeen waa iska caabiyeen waa ka hortageen dhimbasho iyo dhaawac waa yimaadeen nabada uga soo tagnay madaxweyne xasan waxyaabihii aniga asaga aan isku qabanay waxaa ka mid ahayd abaabulaan gelaynaa ciidamaan soo gelinaa beeshaan la hadlaynaa iyo ma samaynaynaa dagaalka hadduu istaago halkaas ku istaago caawa iyo habeen hore waa isku og yihiin shalay annaga waxaa naga dhintay wiil aniga darawalkayga ku dhintay darawalka madaxweyne xasanna waa ku dhaawacmay waa 2 qof hadda waxaa dhintay wiil inta aan ogahay wiil kale waa la sheegay Allahu yaclam waa la soo ogaa doonaa wiilna waa dhaawac dawladnimadu waxay ku dhisan tahay sharci haddii sharci la waayo nin walba taagtaada fuula imaanaysa noomana roona waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheegno annaga dagaal ma wadano xabada ma sidano cidaan dhib ku naamala waxaan garab taagannahay dadka madluumiinta ee Soomaalida ee la dulminayo oo aad aragteen aan garab taagannahay maxay tahay marka madashu waxa ay sameynayso madashu waxay rabtaa inay ku baaqdo Soomaali meel ay joogto mudaaharaad nabadeed oo lagu diidan yahay falalka waxshinimada iyo dhulboobka ka socda magaalada Muqdisho mudaaharaadkaas wuxuu bilaabanayaa Ilaahay idankiisa maalinta Sabtiga ah bishaan aan ku jirnay ay tahay 27ka wuxuu ka dhacayaa 3 goobood goobta koobaad waa Siinay goobta labaadna waxa waaye Daynile goobta saddexaadna waxa waaye Tarabuunka aan ku celiyo
سيناي